waxaan lahaa saaxiib aan aad u jeclaa, saaxiibnimadiisuna igu weynayd. Waxa ay farxad gelin jirtay aragtidiisa, waxaana waxay ii ahaa imaanshihiisa. waxaanu wadaag iyo jaal ahayn muddo aad u dheer. waxaanu ahayn sir iyo soof wadaag, arrintiisuna waxba iguma uusan qarsan jirin. anigana sidoo kale ayaan u ahaa, ilaa aan socdaalay oo aan u safray meel aad iyo aad u fog. haddana ismaanu muugnayn ee waan iska warqabnay. waxaa naga dhexeeyey xiriir wanaagsan, waraaqa ayaan isku diri jirnay in muddo ah. intaa kadib waxaa iga go'ay fariimihii aan ka heli jiray xaggiisa. waxaa shaki i geliyey waxaa ku dhacay saaxiibkay iyo sida xaaladiisu ay tahay. waan soo laabtay, waxaana ka dhigay hammigayga midka ugu weyn inaan mar uun arko saaxiibkay. waxaan ka raadiyey dhammaan goobihii aan ku kulmi jirnay, kamana aanan helin. markii dambe waxaan tagay hooygii uu magaalada ka degnaa, balse nasiib daro kamaan helin. dariskiisuna waxay ii sheegeen inuu ka guuray xaafadda wakhti aad u fog, aynan garanayn halka uu ku dambeeyey. waxaan istaagay meel ay u dhexayso rajo iyo quus dagaalamaya, oo midkoodaba ka guulayso isleh midka kale. waxaan yaqiinsaday inaanan maanta kadib ay adag tahay inaan arkaa saaxiibkay oo aan helo, sababtoo ah ma ogi, mana suurayn karo meel aan ka doono. waan ka murugooday, waan werweray, waxaana indhahayga ka soo daatay ilmo muujinaya dareenka kalgacalnimo iyo saaxiibnimo ee aan u qabo, iyo xiisaha iyo bahalyowga aan u qabo la kulanka saaxiibkayga rumaad. habeenada ka mid ah oo habeenada baaska leh, xilli aan ka soo laabtay gurigayga, aqoon la'aantayda dhanka waddada aan ku socdo ayaa igu hogaamisay waddo mugdi badan, lama degaan oo laga guuray ah, oo u malaynaya qofka fiiriya xilliga aan soo maray inay tahay hooygii libaaxyada. waxaan dareemay sidii anigoo dabaalanaya badweyn aad u madow oo igu garaacaya inta u dhexaysa labada buurood, hirkeeduna ay marba marka kale abaarayaan, marna ay dhabar jeedinayaan, marna ay hawada sare u kacayaan, marna ay hoos u soo degayaan. anigoo niyaddayda miranayso badweynta halista ah iyo xiriirka ayaa mar qura maqlay cod mid ka mid ah guryihii laga qaxay, cod dheer bartamaha habeenkii. wuu soo laalaabanayaa codkaasi, waxa uu saameeyey naftayda saameyn aad u daran. waxaana dhahay alla yaab badanaa, habeenkaa madow muxuu qarinayaa habadkiisa sirta kuwa balaayadu dhacday iyo qarinta kuwa murugaysan. waxaan ahaa mid ilaahay balan kula gala hadduu arko qof murugaysan inuu istaago hortiisa, istaagana qof dadka wax tara, hadduu kari waayana ugu yaraan la murugoodo. waxaan raacay waddadii ilaa aan gaaray gurigii uu ka soo baxay codka aadka u aadaalayay. waxaan garaacay iridka, garaacid ay uturad ku dheexan tahay, lamana furin. waxaan mar kale u garaacay si xoog leh, waxaana iga furtay gabar aad u yar oo malaha dareenkaygu igu yidhi waa 10 sano jir ama wax xoogaa baa u dheer. waxaan ku arkayay toosh yar oo ay gacanta ku hayso, dharkeeduna jeexjeexan yahay, ayagoo u eg sida dayaxa lagu soo daboolay daruurta. waxaan weydiiyey qof jiran miyaa idinka agtiina ahaaday. way qaylisay qayla uu u dhawaanayo inuu ka go'o halbowlaha wadnaheeda, waxayna tiri soo gaar waxaa saqaraan tahaya aabahayga. waxay socotay hortayda, anigana waxaan soconayay gadaasheeda ilaa aan ka gaarno qol albaab yar leh. waxaan u maleeyay inaan ka soo guuray dunidii dadkii noolaa oo aan u soo guuray dunida dadka dhintay, iyo in qolkani uu yahay qabri, iyo in qof jirani uu yahay waxa dhintay. waxaan u soo hoobtay dhanka qofkii bukaanka ahaa, waaba asigoo laf ah oo ay naftuna ku dhex laalaabanayso. waxaan saaray gacantayda dhinaciisa, wuxuu kala furay indhihiisa, waxa uuna aragtiisa ku dheereeyey wejigayga. intaa kadib wuxuu furay bishimihiisa si tartiib ah ayaa waxa uu u yidhi ilaah baan ku mahadsan, waxaan helay saaxiibkay. waxaan dareemay qalbigayga oo ku soconaya xabadkayga argagax dartiis. waxaan ogaaday inaan helay baadidaydii oo aan raadan jiray, oo aan aaminsanaa inaan maalin uun heli doono, ayadoo ku sii socoto waddadii tegitaanka. waxa aan weydiiyey xaalkiisa, siduu yahay, iyo waxa ay tahay goobtan uu ku sugan yahay. waaba asigoo i hilmaamay muddo badan. layr yar ee korkiisa sunana uu bixinayo iftiin aad u yar. wuxuu ii tilmaamay inuu jecel yahay inuu soo fadhiisto. waxaan u taagay gacantayda, wuuna cuskaday. jeer uu si quman u soo fadhiistay, wuxuu bilaabay inuu iiga sheekeeyo qisada imaan doonta. muddo 10 sano ka hor
aniga iyo hooyaday waxaan degnayn guri, waxaan lahayn deris ka mid ah kuwa hantida iyo nimcada Rabbi ku manaystay. Deriskaas gurigooda waxa uu garbihiisa u soo dhaweynayay gabar aysan boqorada iyo guryaha boqoradu aysan soo dhaweyn iyada oo kale, wanaagga, bilicda, dabacsanaanta iyo quruxdeeda darteed. Waxa aan nafsadeyda u muujiyay jacayl aan u qaaday daraaddeed, waxaan awoodi waayay inaan la sabro, kamana suulin inaan ula imaanayo qaab walba oo aan ugu gudbin karo dareenkayga qalbigeeda. Jeer aan ugu dambeyn ballan u qaaday inaan guur diyaar u ahay, waxaana isku kay dhiibtay hoggaankeedii, wax walbana way ogolaatay. Waxaan ku boobay sharafteedii iyo qalbigeediiba hal maalin oo qura, kamana soo wareegin maalmo badan. Markii aan ogaaday in caruur yari ay isku gedgedinayaan caloosheeda dhexdeeda, waxaan bilaabay inaan ku shakiyo inaan u oofiyo ballantii aan u qaaday iyo inaan u jaro xiriirka naga dhexeeya. Waxaan doortay arrinta dambe, waxaan ka soo haajiray gurigii aan booqan jiray. Ilaa maantadan la joogo wax war ah kama hayo. Waxaan ka soo wareegtay dhacdadaasi sannado badan. Maalin maalmaha ka mid ah waxay gabadhi iigu soo dirtay boostadan waraaq. Waxa uuna gacantiisa ku taagay barkintiisa hoostiisa, waxaana ka soo bixiyay waraaq aan ka akhriyay waxa imaan doona. Haddii ay ii ahaan lahayd inaan kuu soo qoro fariin si aan u soo cusboonaysiiyo ballan iyo jacayl waqti hore ka imaaday, kuuma soo qoreen xitaa hal sadar, mana qorsheeyeen xitaa hal eray. Maxaa yeelay ma aaminsani inuu jiro ballan la mid ah ballankaagii khiyaanada ahaa iyo jacayl la mid ah jacaylkaagii beenta ahaa, inuu mudan yahay inaan u dabaaldego si aan u xuso, ama aan ka xumahay burburkiisa oo aan codsanayo soo celintiisa. Waxaad ogaatay markii aad iga tegaysay in dhinacayga uu ka shidan yahay dab xul-iya. Wixii tagay waa wax laga xumaado iyo cabsi mustaqbalka labadaba ah, oo sidayda ii soo gaarayn cirib xumada arrinkaa. Aniga jeer aan naftaada ku qasbin inay dib iigu eegto ayaan dar aad adigu tahay qofka iska leh, mana aadan ku qasbin naftaada tiridda ilin aad adigu tahay midka ay dartiisa u daadatay. Intaas kadib ma mudan tahay inaan nafsadeyda u sawiro inaad adigu tahay qof wanaagsan? Maya, xitaa ma awoodo inaan naftayda u sheego inaad tahay bini'aadan, maxaa yeelay igama aadan tegin wax cilad ah kala geyn kara dadka sida fiican iskugu soo dhawaada. Been baad ii sheegtay, waadna i khiyaantay. Markii aad guurka ballanta igula gashay, waxaad nafsadaada u sawirtay inaadan guursan karin qof dembiile ah. Waa maxay dembigaasi oo adiga aadan ahayn midka gacantaada ku sameeyey? Waan iska kaa difaacay jeer aan hortaada ku dhacay sida ilmo yari ugu kufo dadka xoogga leh hortooda. Waxaad xadday dhowrsanaantaydii, waxaad noqotay qof nafsad ahaan dulaysan, qalbi ahaanna murugaysan. Waxaa iigu cuslaaday nolosha, waxaana ii soo iftiimay geerida. Macaan noocee ah ayaa ugu sugan nolosha haweeney aanan awoodin inay noqoto xaas nin qaba iyo hooyo ilmo leh, iska badaa aan awoodin inay la noolaato bulshada aan ka ahayn ayadoo madaxeeda raaricinaysa, calaacasheedana saaraysa dhabankeeda, hami iyo murugo daraaddeed ay u jaranayaan xididada cabsida ay ku qabto ciyaarta dhallinyarada ciyaartaada daraaddeed. Waxaad iga soo dhex bixisay raaxadeydii. Waxaan noqday qof dayacan kadib markii aan ka soo cararay qasrigii aanay reerkaygu degnaayeen. Hooyaday iyo aabbahay iyo guriga barwaaqada ahaa waxaan ugu soo guuray guri aad u xaqiran oo ku yaala goob aan la garanayn, haysana jirin cid soo garaacda iridkiisa. Waxaan u imid si aan ugu dhuumaysto maalmaha qaraar ee iiga haray nolosha. Waxaad dishay hooyaday iyo aabbahay. Waxaan ogaaday inay dhinteen, umana malaynayo inay u geeriyoodeen wax aan ka ahayn murug ay ka qabaan waayitaankayga iyo quus ay ka istaageen la kulankayga. Aniga waad i dishay. Noloshaas qaraar iyo hamigaasi dheer labadooduba waxay ka gaadheen nafsadeyda iyo jirkaygaba meel aad u fog. Waxaan u malaynayaa inuu Ilaahay igaga aqbalay ducadayna, uuna iga rari doono daartii dhimashada iyo ayaan darada, uuna i dejin doono guryihii nolosha iyo farxadda. Waxaad tahay beenlow khiyaanoola ah, tuug dilaa ah, mana u malaynayo inuu Ilaahay iga kaa tagayo sida asigoon iga kaa qaadin xaqayga. Kuguma soo qorin waraaqdan si aan u soo celiyo xiriir beri hore jiray. Waxaan taaganahay qabriga iridiisa iyo inaan nolosha oo dhan sagootiyo dhib iyo dheefteedaba. Wax rajo ahna kama lihi jacayl sii qoto dheeraada.
waxaanse waraaqadan kuugu soo qoray waxa agtayda ahaaday ammaano aan kuu hayo, waana gabadhaada. haddii aad tahay wixii qalbigaaga ka qaaday naxariista aabanimo, u kaalay oo qaado inta aysan gaarin wixii hooyadeed gaaray oo ayaandaro ahaa. ma aanan dhammaystirin akhrinta waraaqadaas jeer aan fiiriyey oo aan arkay ilmadiisa oo dareeraysa dhabanadiisa. waxaan weydiiyey maxaa dhammaystirmay. intaa kadib wuxuu iga yidhi waana guriga maanta aad igu aragto anoo dhex jiifa. waxaan arkay ayadoo qolkan dhexdiisa taal, isla sariirtan dul saaran tahay oo meyd ah, naftuna mar hore ay ka haaday, wax dhaqdhaqaaq ahna aysan lahayn. waxaan arkay gabadhaydii oo ooynaysa ooyin aad u daran. waxaan la wareeray wixii aan arkay. waxaan isku kaysuureeyey dhammaanba dembiyadaydii aan ku sameeyey ilowshiyaha, waaba ayagoo ah sida tuurjoog dilaa ah, maye libaaxyo safyo ku jira, idiyahana isku xoqaya, miciyahana bannaanka lisanaya. waxaan ku ballan qaaday inaanan ka dhex bixin qolkan dhexdiisa, waana qolka aan u bixiyey qolkii murugada. waxaan ballan ku qaaday inaan ka dhex bixin qolkan dhexdiisa, waana qolka aan u bixiyey qolkii murugada. jeer aan ku dhex noolaado nolol ama aan ku dhex geeriyoodo, maantana waa ikan aan dhexdiisa ku dhimanayo, anigoo weli baraali ku ah geeridan kunana faraxsan. ma aysan gaarin sheekadiisa ilaa xadkan jeer uu istaagay arabkiisa, wejigiisana uu isbedelay asigoo ku dullacay gogoshiisa, naftuna ay ka sii baxday asigoo leh saaxiibkaygiiyo waxaan kuu ogahay gabadhayda. waxaan joogay dhinaciisa muddo 1 saac ah oo aan gutay wax kasta oo saaxiib ugu waajibay saaxiibkiisa oo kale. kadib waxaan fariimo u diray saaxiibyadiisa, wayna imaadeen si ay ugu qayb galaan janaasadiisa. lamana arkin maalinka oohin badan maalinta geeridiisa. markii aan arada ku rognay qabrigiisa, waxaan arkay